ayadoo maanta ay tahay maalintii u dambeysay ee ciidda Ciidul Fitriga ayadoo guud ahaanba laga dareemayo cidhiidhi iyo waliba ay jaam ay tahay goobaha laga raaco baabuurta u baxa gobolada dalka Soomaaliland waxaanu saaka goobihii aan booqanay ka mid ahaa shirkadda Sahal iyo sidoo kale shirkadda Sacaada oo ka mid ah shirkadaha Soomaaliland goobahan oo ahaa goobo aad u mashquul badan waxaanu sidoo kale aanu tagnay shirkadda Bariga Galbeed waxaana guud ahaanba aad ka dareemaysay bulshada tirada badan iyagu u safraya gobolada kala duwan dalka waxaan wax ka weydiinay dareenkooda iyo cid ay salaamayaan ayagoo ay wadaadan anigoo ka darawalada Bariga Galbeedka maanta waxaan halkan ka salaamayaa aad waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland meel kasta ku nool yihiin waxaan leeyahay ciid mubaarak gaariga waxaan waday in shaabi shaar rabadaan Bariga Galbeedna waa wanaagsantahay waa shaqaynaysaa shirkad shaqaynaysa weey magacayga Idris Cabdi Nuur Baladha waxaan ka shaqeeyaa qaybtan tigidhada waxaan qaabilsanahay qaybtan tigidhada marka gaariyada baxaan laga soo ururiyo ayaan qaabilsanahay tigidhadan kala saaraa wixii boorama wixii wajala ayaan qaabilsanahay ka shaqeeyaa xagga maanta waxaan joogaa xaggan shirkaddan Bariga Galbeed alaab ayaan xaggan boorama u dirayaa runtii waa shirkad aad muhiim ah aadna aan alaabaha ugu dirsado gaar ahaan markaan alaab meel kale u dirayo waxaan maanta farxadda ciidda la soo qaadan doonaa magaalada Sheekh oo ay degantahay Naabsaday dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay ciidna ciideeda farxad bashbash iyo barwaaqo iyo reereen inagu gaarsiiyo waxaan u baxayaa safar wajaala ah insha Allah waxaan doonayaa inaan maanta ku maqnaado bari haddii la yiraahdo jimcaana inaan soo noqdo idinkana aad baan idin salaamaya ciid mubaarak baan leeyahay magacayga dan ku bilaabo محمد محمود آدم محمد عانو waxaan u sii socdaa magaalada Boorama alxamdulillah ummadda islaamka waxa leeyahay ciid mubaarak sheekh man doonayaan ciidda ku soo dalxiiso insha Allah sheekh hormo warak waan u arkay laba jeer horantii laakiin burcay barbartoona man arag sheekh kaliya arkay maray ku xigeenka shirkadda Bariga Galbeed wax ka weydiinay bal waxyaabaha ay soo kordhiyeen sanadkani waxaana hadaladiisi kamid ah kulli maanta saddexaad bin ku jirnaa shaqadu si fiican bay socotaa dhammaan gobolada Soomaaliland oo shaqadu ay ka socoto alxamdulillah dadku si nabadgeliye ah inaad kulli xafiiska soo martay ma filaya iyo uga safrayaan xarunta iyo dhammaan goboladaba maadaama Hargeysa caasimadii tahayna waa meesha ugu runtii saxada badan leh waxaan ku dadaalaynaa mar walba dadku inayna waayin runtii gaadiid ay ku safraan oo aan runtii ilaalino security-gooda gawaari runtii nabadgelyadooda darawalka wada iyo gawaari lagu safri karo oo quality fiican leh oo aan dadka waxa weeyaan safraya aan dhexda dhigi karin taasaan ku mashquulsanayn ilaa shalay ilaa maanta sidaan ugu diyaarinay alxamdulillah ilaa haddana si nabadgelyo waxaan aad ugu mahad celinayaa macaamiisha shirkadda socdaalka Bariga Galbeed oo runtii dad aad u xariira oo runtii wax walba runtii ka horumarinaya nabadgelyada iyo inay isku tanaasulaan oo waxa weyn qofka weyn sida loo ixtiraamayo inanka waxa weeyaan dhalinyarada ay inanta dhalinyarada ay u ixtiraamayso qofka weyn ay kuyuga ay runtii u horumarinayaan maadaama ay shirkadu tahay shirkadii ugu horeysay Soomaaliland laga hirgeliyo in shirkado badan oo runtii ayadana nidaamkeedii raacay oo yimid marka la sugayo Soomaaliland ay u furantay runtii socdaal aan hore u dhici jirin oo runtii qiyaas maalintii ilaa 7,000 oo qof inay runtii safraan taasina waxay sameeyeen runtii isdhexgal waxa arkaysaa waxa weeyaan dadka yimid Boorama oo sii gudbaya ilaa iyo Ceerigaabo sii gudbaya ilaa iyo Burco waxaan isaguna wax ka weydiinay gudoomiyaha shirkadda Sacaada oo ka mid ah shirkadaha Soomaaliland waxaana gudoomiyaha hadaladiisi ka mid ahaa anagoo ku hadlaya magaca shirkadda Sacaada Transportation Company shirkaddu waa shirkadda ugu ballaaran shirkadaha ka shaqeeya xagga transportation-ka marka loo eego distance-ga ay shirkad walba socoto ama tagto shirkaddan waxay ka shaqeysaa 6 gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaanteed shirkaddu waxay u kala shaqeysaa 3 qaybood oo kala duwan qaybtii cargo-ga iyo qaybtii passenger-ka iyo qaybtii dalxiiska tourism-ka oo aanu dheerahay shirkadaha kale oo dhan ciidda waxaan soo kordhinay barnaamijyo gaar ah barnaamijyadaas oo aanu bulshada Soomaaliland dalxiisaysa tagaysa gobolada kala duwan ee wadanka aanu u fudaydinay waxaan u fudaydinay isdhexgalka bulshada Soomaaliland Mar cali ducaale Umar Shabash telefishinka caalamiga ee bulshada magaalada Hargeysa